arinta Pakistan waxay ku hubaysatay nuclear si toosana waxay sheegtay garab istaagayso Iran waxay ku caawin kartaa Iran sideedaba laga taqaluso hubka haday dhiibtana Iran way ogtahay in la cunayo way ogtahay waxaana u fiican inaan hubka dhiibin ee ay ku dhimato ayaa inta uu ka maqan yahay Iran ma heliso Mareykan haduu soo galo waa hubaal 100% inay Iran heliso waxa weeyaan xulufo inay heliso xulufada ay helisa ma xulufo Iran ugu heelinaya jacayl laakiin waxa weeyaan waa xulufo iyaguna national interest-kooga eeganaya oo diidaya in Mareykanka iyo dadka la socda ay awoodooda ay kor u qaadaan. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Khiyaarta hawada naga daawanaysay halkani waa MTV daawadayaal ku soo dhawaada falanqeyn aynu ku eegi doono amur ku saabsan wararkii u dambeeyay ee bariga dhexe. Su'aasha imika taagan ee laga hadlayo waxa weeye hadii Mareykanku uu ku soo biiro dagaalka bariga dhexe ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Iran maxaa dhici doona saameyn nooc ah ayuu gobolka ku yeelan doona bariga dhexe dagaalkaasi hadii Mareykanku si toos ah u bamgareeyo goobo ku yaala dalka Iran waxyaabahaas oo dhan ayaan falanqeynteena ku eegi doonaa iyo waliba waxyaabaha macquulka ah ee hadii nabad laga wada hadlo miiska la keeni karo waxa falanqeynteena marti iigu ah Cabdinaasir Timaweyne oo ah khabiir ku takhasusay culumta xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda isla markaana jaamacadaha dalka wax ka dhiga Cabdinaasir ugu horeyn waxaan arkaynay warbaahinta dunida falanqeeyaasha dhinaca istiraatiijiyadaha kuwa dhinaca dagaalada ka faalooda oo ka hadlaya Mareykanku goormuu galaya dagaalka Iran hadii uu galo maxaa dhacaya bal hadii aynu dul istaagno su'aashaasi dalka Mareykanka oo wadan quwad weyn oo dunida kamid ah hadii uu si toos ah ula safto Israa'iil oo uu weeraro ku qaado bartilmaameedyo ku yaala gudaha Iran maxaa ka dhici kara bariga dhexe hadii uu Mareykanku ku soo biiro dagaalka u dhaxeeya Iran iyo Israa'iil arintaasi waxay noqonaysaa catastrophe baa la yiraahdaa catastrophe waa masiibo weeyaan hasa haatee intaan su'aasha ka jawaabin su'aashan laftigeedu waxay xasuusinaysaa in aynu dadka bal marka hore la wadaagno saddex arrimood bay xasuusinaysaa waxay xasuusinaysaa gobolkani xaaladda uu maanta ku sugan yahay sida ay tahay gumaysiga ka hor ama xilligii colonial ka hor sidoo ahaan jiray iyo saameynta uu asaliyanba sida caadiga uu ku leeyahay dalka Mareykanku siyaasadda bariga dhexe saddexdaas very important oo aad iyo aad u muhiim ah gobolkani sidaynu ognahay waxa weeyaan waa gobolka xadaaradda caalamka weeyaan oo waxa weeyaan xadaaradda adduunyadu meesha ka soo farcantay weeyaan oo gobolkan Iran waxay ahaan jirtay Persia ayaa la oran jiray xadaaraddii hore Persia albaxnimadii Persia Iraq Mesopotamia ayay ahayd albaxnimadii Mesopotamia waa halkii laga abuuray in la dego xoolo lagu dhaqdo guri la yeesho noloshu ay ka bilaabanto weeyaan sayniska teknolojiyadda cilmiga waxa weeyaan cilmiga dagaalka cilmiga caafimaadka aqoonta xiriirka caalamiga ah sharciga caalamiga wax waliba ay ka soo farcmaan weeyaan waxa ku taala ilbaxnimadii Turkiga la oran jiray Turkiga ilbaxnimo ahaa ilbaxnimadii hore ee Masaarida maanta laakiin waxa weeyaan waxa la yiraahdaa gobolkani waa the most catastrophe waa gobolka ugu balaayada iyo mashaakilka badan la adduunyada weeyaan oo waxaad aragtay gobolkani wuxuu caan ku yahay dagaal ayuu caan ku yahay dagaaladaas oo dhexmara Israa'iil iyo dadka ay xukunto ee Falastiiniinta oo genocide ku sameeysa dagaalada u dhaxeeya intaas dagaal baa dhexmaray Carabta iyo waxa weeyaan Israa'iil caan bay ku tahay sidoo kale Carabta iyo Iiraaniyiinta waxa weeyaan caan bay ku tahay in dagaal dhexmaro iyo cooda dhex taalo waxa xusuusta dagaalkii Ciraaq iyo kii Iiraan ayaa xasuus ah Carabta laftigooda ayaa codad isku wada hayso waxa kamid ah xasuus loo xasuusan kara dagaalkii Kuwait iyo Ciraaq dadka sidaas isku wada haysta weeyaan afar baawar oo gobolkan waaweyn oo ku tartamaya ayaa iyaguna jira maanta oo waxa weeyaan raba mid waliba inuu noqdo libaaxa bariga dhexe uu noqdo oo kamid yahay Saudi Arabia Turkiga Israa'iil iyo Iran oo mid kale uu doonayo inuu muxuu hayay iska reebo oo gobolka noqdo koogu atoreysan gobolkani qodobka saddexaad ee muhiimka ay tahay inaan xasuusnaa waxa weeyaan Mareykanku saameynta gobolkan ku leeyahay gobolkan inuu sidaan noqdo oo uu qasmo labada muxuu hayay actor ee ugu waaweyn ee saas ugu wacani waxa weeyaan wadanka
ingiriiska iyo wadanka maraykanka oo waa dee siyaasadba ayaa la isku hayaa marka waxaydna muhiima bal iiraan iyo maraykanka taariikhdoodu xiriirkooga haluu kasoo bilaabmay iiraan iyo maraykanku waxa weeyaan isma aamini karaan xiriirkoogu wuxuu ku dhisan yahay aaminaad darru ku dhisan yahay 1953 dowladdii dimuqraadiga ahayd ee maxamed musaadiq uu hogaaminayay ciddii fashilisay waxay ahayd maraykan oo sheeko dheer bay u baahan tahay ee meesha ka saartay afgambiday ee boqortooyadii la eriyay kusoo celisay iyada ayay ahayd haddaan soo koobno sidoo kale heshiiskii ay wada galeen iiraan iyo maraykanka iyo dowladaha kale ee dee markhaatiga ka ahaa ee lunarka lagu dhibayay cidda ka baxday waxay ahayd maraykanka ayay ahayd sidoo kale dhowaan heshiiskii la rabay in la sameeyo Trump markuu ku dhawaaqay inuu la heshiinayo iiraan la heshiinayo oo halkaa wadaan cidda u hoosaasisay waxay ahayd maraykan inay iiraan weerarto ee ay dhigteen ayay ahayd marka haddaan su-aasha usoo noqdo gobolka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa hadduu dagaalka soo galo wadanka maraykanku saameyntaasi waxa weeye waa doubling catastrophe masiibadii iyo balaayadii gobolka ka taagnayd ayaa labalaabmaysa oo gobolkan marka horeba la daala dhacaya waxyaabaha aynu ka soo sheekaynay marka dagaal kale loogu daro oo waxa weeyaan interventionkii hore lagu sameeyay Ciraaq waxa weeyaan iyo wadamada Liibiya lagu sameeyay Afghanistan lagu sameeyay oo ku fashilmay waxa weeyaan Suuriya lagu sameeyay waxaas oo dhan la sameeyay Israa'iil iyo Iiraan oo isla rafanaya waxaas oo dhan dhaqaale xumada waxa weeyaan argagixisada dawlad xumada dictatorshipka boqortooyinka dadka sabrashan ku sameynaya dagaal hadii hadana la keeno doubling catastrophe ayaa ka dhalanaya marka hadan hoos u sii dago waxa weeyaan wuxuu noqonayaa dagaal qabuuba bilaabmaya marka ugu yaraan haddana dagaal saddexaad noqon dagaal qabuuba bilaabmaya oo gacmaha la isku tago oo waxa weeyaan dawlado badani ay soo galaan oo xagga Yurubna qaar baa la soconaya Iiraanna qaar baa waxa weeyaan la soconaya mandaqadana deganahay geeska Afrika iyo adduunka dhanna saameyn buu ku yeelanaya because dagaalkani wuxuu keenayaa wax loo yaqaano global system crisis ama global crisis dunida oo dhan ayuu gilgili doonaa oo saddex arrimood buu keenayaa wax la yiraahdo marka economic shock oo dhaqaalaha ayaa waxa weeyaan adduunyada ayaa burburaya ilaa geeska Afrika dhaqaalihiisa ayaa burburaya sidoo kale waxa weeyaan markaad geeska Afrika eegtay badda cas burcad badeedii ayaa iyaduna soo noqonaysa oo wadanka Mareykanku dagaal haduu galo ciidamadiisa badda ilaaliya iyo kuwa halkan jooga wuxuu u rarayaa xagga dagaalka ayuu u rarayaa sidoo kale waxa imanaya geeska Afrika wax loo yaqaano geopolitical pressure baa imanayo dawladuhu waxay noqonaysaa inay dawladahan kala raacaan deetana oo meesha ka bilaabmo proxy war wadiga arkay markii Ruushka iyo waxa weeyaan ay isleynayeen Ukraine iyo reer galbeedku isleynayeen xataa waati geeska Afrika soo gaadhay xataa ilaa Xasan Sheekh Talyaaniga markuu tagay la yiri waxa weeyaan cambaare waxa wax cambaaraysa Ruushka cambaare isagoo wax dan ugu jira aanay jirin waxa weeyaan cambaare wadiga arkay in waxa weeyaan Ethiopia ay iyaduna raacday xagga bariga oo wata BRICS ku biirtay Djibouti waxa jooga oo meeshii wada jooga awoodihiisa hayba wada jooga oo Mareykankii baa jooga oo Shiinihii baa jooga oo reer galbeedkii kale baa jooga Faransiiskii Jarmalkii baa jooga oo waxa weeyaan meeshani waa tiyaatarka ay ku tartamaan ay ku dul dagaalamaan waxa weeyaan wadamada great powerska loo yaqaan ama super powerska loo yaqaan marka saameyn halis ah oo abiti ugu xumeyd ah ayaa ka dhalanaysa oo ah doubling catastrophe masiibadii si labanlaabmaysa way Ahmed Nasir marka Cabdi Nasir marka laga hadlayo tusaalahaan oo kale arinta ku saabsan Iiraan iyo Israa'iil waxaad moodaa in dagaalkan ama weeraradan lagu sababaynayo ama ay salka ku hayso arinta nuclear-ka ee Iiraan ay wado mudana waxa socday wada hadallo inkastoo ay fashilmeen Trump laftiisu wuxuu sheegayaa waad moodaa inuu doonayo uu leeyahay dagaalkan waxa joojin karayo kaliya inay Iiraan ay ka tanaasusho hubkeeda nuclear-ka markaas ay isweydiin waxa weeye Iiraan hadii ay ogolaato inay ka tanaasusho ama ay ogolaato wada hadal in laga wada hadlayo ama xal laga gaarayo arintan xudunta u ah waxan taagan ee hubkeeda nuclear-ka ah xal ma iman karaya may xal ma imanayo arrinka ugu weyn lagu haysto waa nuclear-ka marka macnaheedu waxa weeye waa miciyaha aan ka saarno kadibna aan ku cunno weeyaan laakiin saddex arrimood oo kala Iiraan lagu haystaa waa koow Iiraan oo horta taatu saala waxa ugu filan markii Saddam Hussein hubkiisa uu burburiyay waxa Saddam Hussein wuxuu haystaa hub biological iyo chemical uu haystaa markii laga waayay waxa ilaha laga baaro waa laga baaray waxoogaa missiles laga helay wixiina waxa la burburi uu burburiyay
maalintuu burburiyey wixii ka dambeeyeen waadiga ogaa waa la dilay waa la daldalay taariikhdu waxay ku sheegaysaa Libiya Qaddafi hub nuclear uu sameeyay markii la ogaaday isagoo iska dhigaya oday caalamiya hubkiisii uu dhiibay waanu wareejiyay amaanna ku helbuu lahaa kuma helina waadigi ogaa waa la dilay si xun baa loo dilay hantidii dalkana waa la dhacay dalkiina waa la qaybiyay marka Iran waxa lagu haystaa oo kale ka oo kaliya lagu ma haysto kaasi waa qoloftii diinka oo waxa weeyaan diinow hilibkaaga aan cunay qolof hayeelan weeyaan laakiin waxa kale lagu haystaa waxa weeyaan xagga powerka kale ee xataa influence-ka ay ku yeelatay gobolka bariga dhexe ay ku yeelatay ilaa Iraq maxaa la yiraahdaa Xuutiyiintan oo Yamanta ah Lebanon oo Hezbollah ah Hamas oo waxa weeyaan iyaduna Falastiiniyiintii ah iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee ay wado qodob kale oo isna muhiim ah jira wax loo yaqaano ideological differences kala duwanaanshaha xagga ideologiyada wadamada reer galbeedka iyo Iran waa liberal ayaa la yiraahdaa liberalkuna wuxuu neceb yahay dawladaha diinta ku shaqeeya Iranna waa autocracy waa dawlad nidaamkeedu waxa weyn dunida ku cusub yahay oo dualistic system baa la yiraahdaa nidaam diin ku salaysan iyo dhaqan ku salaysan iyo nidaamka yaray dimuqraadiga ahaa leh marka muhiimadu nuclear-ka maaha muhiimadu waa ideology-ga tusaalahaan oo kale nuclear-ka ay haysata Iran waxa Mareykanka uu haysto Ingiriisku muxuu u dhibi waayay wadanka Mareykanka ama wadan kale oo Europe maanta Sweden hadii tiraahdo waxaan sameysanayaa hub nuclear dhibi mayso because waa isku ideology kama baqayaan laakiin wadankan Iran haday ahaan lahayd wadan ideology-giisu aanu sida ahayn oo liberal ah kamay baqi lahayn marka waa ideology mid la xiriira iyo mid saameynta gobolka bariga dhexe ay ku leedahay Iran la xiriira weeyaan marka wax la rabaa in Iran sideedaba laga taqaluso hubka haday dhiibtana Iran way ogtahay in la cunayo way ogtahay waxaana u fiican inaan hubka dhiibin ee ay ku dhimato ayaa u wanaagsan way hadii uu sii socdo dagaalkan oo waliba dagaal toos ah uu isu bedelo maxaa ka dhici kara maalmaha soo socda ama maxaa dhici kara dagaalka Iran iyo Israel hadii uu sii socdo waxa ugu horeeya ee dhacaya waxa weeyaan Mareykanka soo galaya number 1 uu soo galaya haduu saa ku sii socdo oo Israel la xanuuniyo haduu soo gali waayana waxa dhacaya laba arrimood oo kala dhacaya koow Israel waxay isticmaalaysaa nuclear-ka ayay isticmaalaysaa sidoo kale waxa imanaya wax loo yaqaano escalation of war dagaalku faraha ayuu ka baxaya oo waxa weeyaan escalation waxa la yiraahdaa marka hore ee daandaansiga iyo conflict ku jiro dagaalka waxa hogaamiya siyaasadda iyo aqliga hogaamiya oo diblomaasiyad baa ka horeysa marka uu bilaabmo laftigeega uu bilaabmo xoogaa socdo wali siyaasadda hogaaminayso maxaan sameyn karnaa baa leeyahay waa ka maanta Trump leh 15 saacadood baan siiyay Iran oo ay kaga fikirto waa inay isdhiibista uu sheegayana maaha inay dhulka isdhigto laakiin wuxuu leeyahay nuclear-ka ha joojiso taasoo uu qarinayo wax kalena kama rabay nuclear-ka ha joojiso uu leeyahay marka arintuna way sii xumaanaysaa Israel waxay isticmaalaysaa nuclear-ka haday isticmaashana halka waxa ka dhacaysa balaaya ka dhacaysa way dad badan ba isweydiinaya hadii dagaalkani uu sii fido oo gobolka bariga dhexe ku filo ma noqon kartaa dagaalkii saddexaad ee dunida oo tusaalahaan oo kale wadamo kale ay ku soo biiri karaan oo halkaasi dagaal culus oo aan waxba la suulahayn oo lagu kala safto ma horseedi karaa dagaal saddexaad dunida ka dhaca yes it is possible but it is unlikely waa suuragal oo wax dhici kara laakiin uma dhawa dagaalka saddexaad ee adduunku waxa jira anagu kuma qasbanin inuu halka ka dhaco inuu ka dhici waayo laakiin cadeymaha loo hayo inuu dagaal ka dhici karo iyo cadeymaha uu hayno inuu dagaal ka dhacaynin waxa ka badan cadeymaha inuu dagaal ka dhacaynin dagaalka saddexaad uu ka dhacayo waxa weeyaan Shiinaha iyo waxa weeyaan Taiwan gobolka ay ku yaalaan uu ka dhacayo sababtuna waxa weey dagaal saddexaad waxa la Taiwan ayaa xudun u noqon kartaa dagaalka saddexaad waxaan ku go'aaminaynaa arrinka waxa weey dagaal saddexaad yaa gali kara waxa gali kara great powers ka gali kara great powers ku waayo Mareykan baa kamid ah Mareykanka waxa loo yaqaano national defense strategy-giisa uu sameeyay 2022 ee 5 sanoodlaha ah ama 4 sanoodlaha ah ee ay sameeyaan waxa weeyaan guddiga amniga ee wadanka Mareykanka iyo guriga cadi ay sameeyaan ilaa waxay ku socon istiraatiijiyad ku socdaan wuxuu dhigayaa priority-ga number 1 foreign policy-ga ee meesha uu saarayo xoogu inay yihiin Shiinaha iyo Taiwan ayuu qoraya ma qorayo bariga dhexe ma qorayo sidoo kale waxa loo yaqaano US strategic core interest area ee traditionalka ah ee caadiga ah ee Mareykanku ku dhaqmo afar bay ka kooban yihiin afarta
bariga dhexe maanta ma aha number 1 wuxuu ka yahay number 3 number 1 waa gobolka uu Mareykanku degan yahay ee la yiraahdo Western Hemisphere oo uu ka ilaaliyo oo secure ku ilaaliyo number 2 na waxa weeyaan imika waa meesha uu ku yaala Shiinuhu waa Aasiyada bari weeyaan maaha Aasiyada galbeed maaha waa Shiinaha iyo Taiwan ayuu weeyaan number 2 giisu number 3 guna waxa weeyaan bariga dhexe oo waliba Gulf countries-ka loo yaqaano number 4 kuna waa Europe weeyaan Europe marka bariga hore waxay ahaan jirtay dagaalkii koobaad number 2 way ahaan jirtay kii labaad iyo dadkii qaboobaa iyo number 2 way ahaan jirtay laakiin markii dambe muxuu ahay arrimuhu isbedeleen siyaasadda Mareykanku shifting bay sameysay pivoting wax la yiraahdo sameeyay marka meesha dagaalku ka dhacaya waxa weeyaan waa meesha Shiinuhu ku yaala weeyaan laakiin de wax kasta markay doonaan way isbedeli karaan way in qodob kale aad looga hadlay ilaa imika Israa'iil waxyaabaha u doonayso in Mareykanku ay ku soo jiido inuu dagaalka qayb ka noqdo waxa kamid ah oo la sheegaya in aanay awood u yeelan ama aanay awood Israa'iil u lahayn in ay duqeyso ama ay burburiso goobaha xarumaha nuclear-ka ee Israa'iil marka ma la oran karayaa hadii gantaalaheedan ay ku garaacayso Iran Israa'iil ku garaacayso hadii ay waxba tari waayeen iyadana gantaalo badan lagu soo garaacayo dhul badan ay ka burburiso Tel Aviv iyo Haifa ay ka mid yihiin ma la oran karaa Israa'iil lafteedu markay nafta u yaabto waxay isticmaali kartaa hubka nuclear-ka lagu toosinaysto yes very possible wax aad iyo aad u suuragal weeyaan saddex arrimood oo arrinka cadeynaya ayaa jira number 1 waxa loo yaqaanaa xiriirka caalamiga iyo siyaasadda caalamka escalation theory wuxuu dhigayaa haddii dagaal uu bilaabmo oo dagaalkaasi uu joogsan waayo waxa weeyaan siyaasadda hogaamisa dagaalka marka hore marka dambe dagaalka siyaasadda waxa hogaaminaya dagaalka arinku wuxuu isku bedelayaa arrin military buu isku bedelayaa markuu isku bedelana si wadankan survival u helo wuxuu isticmaalayaa wax kasta oo uu haysto ayuu isticmaali karaa marka Israa'iil waa wadan waxa weeyaan ruthless ahmaq weeyaan oo aan naxariis lahayn waa dadka sidoo u galay wadiga arkay dadkii wadankiisa gudihiisa waana dal ku dhisan dhul aanu lahayn waa survival waa ama noolow ama dhimo weeyaan qodobka labaad waxa weeyaan waxa jira wax loo yaqaano history proofs taariikhda cadeynaysa inay sidana dhici karto waayo wadanka Mareykanku wuxuu isticmaalay 1945 dagaalkii labaad ee adduunka markii Japanku uu weerarka ku qaaday wadanka Mareykanka ee uu qabsan gaaray jasiiradaha Hawaii-ga loo yaqaano saldhigga military wadanka Mareykanku ku leeyahay ee dekada ku yaala dekada loo yaqaano Pearl Harbor ku yaala meeshaas oo meesha Mareykanka laga ilaaliyo jeelku wuxuu leeyahay meel tower laga ilaaliyo meesha Mareykanka laga ilaaliyo ee hadii la qabsado Mareykanka oo dhan la qabsanayo arrinka Mareykanku wuxuu kaga jawaabay in uu weydaarto dalkoogii Japan oo Nagasaki iyo Hiroshima ku soo dhufto laba bam oo nuclear oo gibigooda dekan uu ka dhigo isla markaana uu ku qasbay inay ku noqdaan ciidamada xoriyahooga iyo in caalanka cad taagaan isla markaana markii dambe keentay in uu laayo madaxdii dagaalka hogaaminaysay hortooda ku daldalo isla markaana uu u qoro dastuurka wadanka Japan ay ku dhaqmayso iyadoo oo wadanka ay u yaqaaneen Ilaahay inuu yahay boqorku dastuurkana loogu bilaabay halkii lagu bilaabi lahaa Ilaahooga halka inagu aanu kaga bilowno bismillaahir rahmaanir rahiim ayaa dastuurkoogii Japan Mareykanku wuxuu ugu bilaabay in the name of Abraham Lincoln and George Washington markaas ay yaabeen marka uu isticmaalay taariikhdu waxay ku sheegaysaa inuu isticmaalay qodob kale oo very important jira oo madaxdu markay hadlayaan hadalkoogu waa muhiim waa la dhuuxaa sanadkan gudihiisa waliba bishii ka horeysay hadban u maleynaya isagoo la hadlaya war saxaafad isagoo qabanaya wuxuu yiri xasuusta buu yiri wadanka Mareykanku markii uu naftiisa u yaabay waxa uu isticmaalay nuclear-ka ayuu isticmaalay sida daraadeed hadal sidaas yiri hadalkaas oo u dhigan marka anagana hadii aan nafaheena u yaabno waxaan xaq u leenahay inaan isticmaalo hubka nuclear-ka marka hadii hawluhu ay isna ku sii socdaan waa suuragal in nuclear ay Israa'iil isticmaasho waayo cid ay ka baqayso oo kale ma jirto Mareykankiina waa la socdaa reer galbeed oo dhanna waa la socdaa waxana way la qabayaan marka kaligeed kuma ekaanaysa wixii dhacaan waa ilmo yaro wax sameynaya responsibility-gina waalidkiisu qaadanaya oo beerka loo garaaco oo laabta loo garaacayo weeyaan way marka laga hadlayo Cabdinaasir arrinta ku saabsan Iran oo kale ilaa imika wadanka isaguna ku hubaysan nuclear-ka ee Pakistan ayaa u muujiyay inuu garab istaagi doono oo uu magaranayay taageeri doono
markaas su-aasha dad badan isweydiinayaan waxay tahay haddii dagaalkaasi sii xoogeysto oo maraykanku soo galo wadanka iiraan la yidhaahda ma helayaa xulufo sida maraykanku israa'iil u garab istaagay si toos ah u garab istaaga oo dagaalka qayb kala noqda iiraan ha inta uu ka maqan yahay iiraan ma heliso maraykan hadduu soo galo waa hubaal 100% inay iiraan heliso waxa weeyaan xulufo inay heliso xulufada ay helaysaa maaha xulufo iiraan ugu heelinaya jacayl laakiin waxa weeyaan waa xulufo iyaguna national interestkooga eeganaya oo diidaya in maraykanka iyo dadka la socda ay awoodooda ay kor u qaadaan sidoo kale waxa weeyaan yaan loo malaynin in ay iiraan tahay sidii waxa weeyaan ciraaq iyo libiya laba arrimood dartoodba arrinta koobaad waxa weeye markii la weerarayay ciraaq iyo libiya iyo afghanistan iyo suuriya adduunyadu waxay ahayd waxa loo yaqaano nidaamka caalamiga ama orderka caalamigii wuxuu ahaa waxa la yidhaahdo unipolar system adduunyada waxa dowlad ka ahaa oo ka talinayay wadanka maraykanka ayaa kow ka ahaa markaa cidi kumay faragelinin cid waliba waxa weeyaan way ka gaabsatay ciraaq waa lagu aqashay ruushka daciif buu ahaa shiinuhu daciif buu ahaa libiya waa lagu aqashay suuriya markay marayso ayaa waxoogaa u baraarugay wadanka ruushku oo uu miciyihiisii la soo baxay marka afghanistan saas oo kale ahayd laakiin maanta adduunyadu waxay maraysaa waxa loo yaqaano multipolar system maaha meel keligii adduunka uu ka taliya wadanka maraykanku waxaa jira awoodo kale oo iyaguna sida ruushka iyo wadanka shiinaha oo yidhi no your time finished wuu dhammaaday waqtigaagii aad keligii adduunyada ka baalo xoftaynaysay eed ka libaaxaynaysay hadda waa xilligaan anaguna kula talin lahayd adduunyada ka wada talin lahayd iyagaa ka hor istaagaya markaa way ku faragelinayaan marka waxay ka heli kartaa hadday xataa ka heli kari weydo taageero toos ah hadday ka heli kari weydo wuxuu noqonayaa dagaal qabow buu noqonayaa oo waxay ka helaysaa iiraan xagga diblomaasiyadda xagga dhaqaalaha xagga teknolojiyadda xagga satellite-ka xagga sirdoonka xagga dawooyinka xagga qalabka militariga wax walba way ka helaysaa si ay u fashiliso gardarrada wadanka maraykanka iyo israa'iil ay wadaan marka taasi warwar ma laha hadday taa samayn waayaan macnaheegu muxuu noqonayaa macnaheegu wuxuu noqonayaa taa macnaheegu waxa weeye dunidu weli ma aha multipolar system ee waa unipolar system waayo haddii la challenge garin waayo laakiin saa uma muuqato waa la challenge garinaya waa adiga arkaya maraykanka ethiopia laga saaray afghanistan baa laga saaray waa adiga arkaya iiraan iyo waxa la heshiisiiyey waxa weeyaan iyo sacuudiga baa la heshiisiiyey waa adiga arkaya shiinuhu wuxuu diiday cunaqabatayntii uu saaray iiraan buu diiday oo wuxuu ka iibsadaa shidaalka venezuela brazil shidaalkay ka qaadataa ka iibsataa cunaqabatayntii waa la jabiyey maanta keligii kama baa la xoftayn karo marka way helaysaa way arrinta Pakistan waxay ku hubaysantahay nuclear si toosana waxay sheegtay inay garab istaagayso Iiraan waxay ku caawin kartaa Pakistan waxay sheegtay in nuclear isticmaalayso laakiin arrinkaasi markaad eegto xiriirka caalamiga iyo siyaasadda caalamka suurtagal maaha waa suuragal laakiin uma dhawa taas waxay la mid tahay oo ay u eg tahay waxa loo yaqaano interstate lies adduunyadu waxay leedahay wax loo yaqaano international political lies beeno siyaasadda caalamka ku jira baa jira oo madaxdu sheegaan oo buugga uu ku qoray professor John Mearsheimer uu ku qoray magaciisa la yiraahdo Why Leaders Lie maxay madaxdu beenta u sheegaan marka tani waxay la mid tahay wax loo yaqaano interstate lie wadan baa wadan kale been u sheegayo wadanka Mareykankuba uu sameeyay oo wuxuu sameeyay dagaalkii qaboobaabu mar sameeyay wadanka Ruushka ayaa wuxuu ku hanjabay inuu isticmaali doono nuclear inuu isticmaali doono ku hanjabay wadanka Ruushku Mareykanku markaa xilliga isaguna wuxuu yiri hadii aad u isticmaasho wadamada reer Yurub nuclear aad u isticmaasho aniga oo Mareykana waxaan ku isticmaalayaa adigana nuclear xilliga may haysan markaa iyagu qaar intooda badan waa ku isticmaalaya ayuu ku yiri laakiin ninkii la oran jiray Robert McNamara xogayihii difaaca ee xilligaas iyo Kissinger Henry Kissinger ninkii la oran jiray isaguna ee diblomaasiga ahaa mar dambe oo xiisadu qabowday oo wariye uu weydiiyay wariye yaaban oo ku taqasusay xiriirka caalamiga waxyaabo aad u garanaya weydiiyo ku yiri horta berigii aad sidaa lahaydeen was it possible miyaad isticmaali lahaydeen markaasa labadaba uu tagay wariyuhu waxay yiraahdeen no that was impossible inaan isticmaalna sababtu waxa weeye inta badan dalka nuclear-ka isticmaalaya cidda uu isticmaalayo nuclear-ku waa hub nabadeed weeyaan marka
باكستان ريسك نفteeda uma gelin karto wadanka Iran maxaa yeelay alliance maaha laakiin Iran waxay rabtay Pakistan dadkeeda inay niyada u qaboojiso sidoo kale awoodeeda inay muujiso ay ku leedahay bariga maxuula hataa ay Pakistan laftigeedu bariga dhexe waa lagu daraa ay ku leedahay siyaasadda caalamka ay ku leedahay marka riski uma geli karto Iran Pakistan oo nafteeda riski uma gelin karto in ay muxuu ahaayay inaan ay nuclear laakiin si kale ku difaaci kartaa waxay ku difaaci kartaa waxyaabo kale ayay ku caawin kartaa oo marka qaar waa col marna waa saaxiib iyadoo iska ilaalinaysa danaha masaaliixda wadanka Mareykanku inay fududaadaan hadduu adduunyada cid kasta miciyaha ka saaro in iyadana waxa weeyaan culayska lagu hayo imika ba jira kor loo sii qaadi karo ugu dambeyntii maxaad is leedahay xal ayay noqon kartaa oo waa lagu dhameyn karayaa arrinta ka taagan bariga dhexe Israa'iil iyo Iran dhaxaysa arrinkan imika wuxuu u dhaxeeyaa Israa'iil iyo Iran halkana gacanta waxa ku haysa Iran halku waxa weey aniga in my opinion kayga Iran inay isticmaasho theory-gii la oran jiray Niccolo Machiavelli ninkii falsafarka siyaasiga ah Niccolo Machiavelli qoray buugga loo yaqaano Prince Niccolo Machiavelli wuxuu yiri qofka hogaamiyaha waa inuu ogaadaa marka uu wuxuu leeyahay theory la dacwada iyo libaaxa waa inuu ogaadaa qofka hogaamiyaha xilliga uu dagaalka galayo iyo xilliga aanu galin marka wuxuu yiri haddii aad la dagaalamayso cadow ka xoog weyn ha noqonin libaaxa u dhaqmin that is stupidity buu taasi waa stupidnimo laakiin u dhaqan sida dacwada oo kale ubax iska horreysay dacwada wadii garanaya sheekadii dacwada maxay cadaaladda ku baray baa leeyahay waxay tiri ish cali ka laalaada marka sheekadii waxay ahayd libaaxi baa wuxuu yiri wabal qaybihi albahano waraabihi wuxuu yiri laba uu qaybiyo libaaxu buu yiri labaan u qaybiyay boqolkiiba 50 adigu qaado inuu badiyo ismoodaya boqolkiiba 50 habar dogaag baa la buu yiri deetana dhirbaaxa lagu dhufto ishiiba ka soo booday dacwo la dacwo qaybi dacwo waxay tiri way qaybisay libaaxu waxay tiri boqolkiiba 50 adaale 50 ka soo haray bay hadana qaybisay waxay tiri intaas angala qaybiye hadana qayb adaale hadana way sii qaybisay say u qaybinaysa intii ugu dambeysayna way siisay waa marka laga xogay wayna ku badbaaday maanta Iran lama dagaalamayso wadanka wax lama dagaalamayso maxaa la yiraahdaa Israa'iil haddana waxa la isku hayaa markii ugu dambeysay daraatoolay waxay lahayd dagaalka anigu joojin maayo oo waxay rabtaa inay kaga dambayso laakiin Israa'iil baa soo weerartay Israa'iil horta ha joojiso Israa'iil la waxay rabtaa inay iyadu ay joojiso marka inay retaliation-ka Iran joojiso inay joojiso iyadu oo haddii hadda mar la soo weeraro ay istifaacid weerarka joojiso tiraahdo weerarka waan joojiyay nabadna waa raba ayaa u fiican haddii kale meesha lagu dagaalamaya waxa weeyaan waa dhulkeedii mana hubto 100% inay garab heli karto waxa weeyaan waxa soo weeraraya waa reer galbeed oo dhan marka inay diblomaasiyad isticmaasho ayaa hadda haboon laakiin istifaacdo laakiin ay weerarka joojiso arrin kale oo muhiim ah isna jira Israa'iil waxay weeraraysaa iyadu xarumaha militariga iyo sirdoonka si xirfad leh smart attack baa la yiraahdaa laakiin Iran targetku wuu ka xun yahay hubku wuxuu ku dhacayaa inta badan Israa'iil baa ku dhacaa marka qaarkood laakiin shacabka taasina waxay luminaysaa legitimacy-ga Iran ay isku difaaci karto ay luminaysaa waxa loo marka horeba iyadoo loo mamarsiyo loo raadinayo waxa la oranayaa shacab ayay dishay isla markaana ma daciifinayso cududii la dagaalamaysay inay shacabka wax ku dhufataa waxba kama taraysay cududii waa sideedii marka mar haddaan cududda daciifin karaynin inay dagaalka weerarka ay joojiso oo ay istifaacdo isla markaana ay diblomaasiyad raadiso very important ah laakiin xal kale ayadna jira oo ah Iran in la galo waxa weeyaan heshiiskii la galay 2015 ee Barack Obama la galay halka ugu fiicanna waa kaana waxaan ogolayn reer galbeedkii baan ogolayn marka labada xal baa jira ka haday diidaan kan ha qaadato nuclear-kana Iran inay dhiibto maaha waa inay nuclear-keedana haysato oo ay horumariso waayahay aad iyo aad buu daawadayaal maasay kaas waxa uu ahaa Cabdinaasir Timoweyne oo ah khabiir ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda oo bartan aan ku falanqeynay amar ku saabsan hadii dagaalka uu galo dalka Mareykanku maxaa ka dhici kara gobolka bariga dhexe intaan falanqeyn talaamada ku doono waxa kaga tagayaa aniga iyo khadar oo dhinaca farsamada joogayba iyo waliba martida Cabdinaasir sida iyo nabadgelyo